السلام عليكم. kusoo dhawow AJS official. Waxaan rabaa inaan halkan kaa sheego waxa uu yahay forex. Waa maxay forex? Sidee ayuu baad ugu faa'iideysan kartaa? Forex waxaa loo sameeyay si gaar ah si uu ugu hago dhinacyada ugu muhiimsan ee ganacsiga sarifka caalamiga ah. Casharkan waxaad ku baran doontaa waxa uu yahay sarifka caalamiga ah, sida aad ku kasban karto ama wax maxay sababta ay muhiim u tahay sarifka lacagaha qalaad. Waxay qeexaysaa in hal lacag lagu bedelan karo lacag kale. Sidoo kale waxay tilmaamaysaa suuqa maaliyadeed ee caalamiga ah, halkaas oo lacagaha lagu kala iibsan karo online saacad kasta. Waxaa jira fikrad qaldan in si aad u bilowdo ganacsiga forex aad u baahan tahay milyaneer ama ka qalin jabisid jaamacadaha sare ee dalka ku yaala. Kumanaan qof ayaa wax ku iibsada iibiyaha lacagaha overseas ah, midaas oo aan lahayn xirfad inay yeeshaan ama ugu lahayn ayagoo xirfad u lahayn ay ka shaqeystaan forex. Waxa aad jiro lacagta aad haysatid oo haddaad rabtid inaad safar aad gashid, lacagta aad haysatid aad u baahan tahay inaad faa'iido ka heshid lacagtaada. adoo lacagtaada haysta ayaa lacag kale ku bedelan kartaa si aad u hesho faa'iido badan. boqolkiiba 5 ayaad faa'iideysan. Tusaale ahaan, shirkad Mareykan ku taala ayaa maalintii waxay doonaysaa inay ka qayb gasho ama ay bixiso lacagta sarifka hoos u dhacay ee dollarka ah. Maanta aniga waxaan ku joognaa Afrika ku noolahay, lacageena dollarka ah xilli ay yaraadaan xilli ay bataan ma naqaan. maalin walba waxba si baan u qaadanaa lacagta, mana naqaan xilliyada badan sanad, laakiin caalamka maalin kasta way isbedelaan. Waxaa jira shirkad waaweyn ee raba lacagta inay u bedeshtaan euro, taasoo sicirkeeda hoos u dhacaya lacagta dollarka ayna koraysa lacagta euro-ga. Kadib ayaa boqolkiiba 5 waxay iska iibinayaan lacagtii dollarka ah, waxayna raadinayaan lacagtii euro-ga ah. Si ay u helaan euro-ga, waxay soo bandhigayaan lacag badan si ay u helaan lacagta euro oo ay tahay mid aad u sareysa qiimaheeda. Maxaa dhacaya haddii aad u baahan tahay inaad iibiso 1 milyan oo dollar sida ugu dhaqsiyaha badan? Taasi caqabad kuguma noqon doonto forex sarifka caalamiga ah. Lacagta dhaafku waxay ka dhigan tahay suurtagalnimada in lagu iibsado tiro lacag ah oo qiimo badan oo suuqa iyada ee taalo. midaasi suuqa sarifka caalamiga ah waxaa dareemaysaa sababaha qaar ee lacagta ay ugu yaraan ama hoos u dhacayaan lacagta kalena ay kor u bixiso, sida bangiyada dhexe iyo bangiyada waaweyn ee xindaaban ay gaarka loo leeyahay. Waxay sameynayaan dollar ay soo bandhigayaan si ay u qaataan euro, kadibna qofkiina euro ayuu haystaa, dollarka ayuu wax badan ku dhufsanayaa. ayuu halkaas maanta hadduu 1 euro oo haysto qofkani, bangi wuxuu siinayaa $100, sidaas ayuu ku faa'iidayaan. balse maalmo kadib euro-gii ayaa haddana hoos u dhacay, dollarkii ayaa la raadin doonaa. qofka dollarka markaas qaatay muxuu helaa? wax badan ayuu haystaa oo ah dollarkii oo ka arursaday bangiyada ayuu ku fadhiyaa. waxaa jiro si aad suuqa u soo gasho, sideeda ayaad u soo gali kartaa suuqa adigoo aan haysan lacag aad u badan. La kulan dalaal. dalaalku waa dhexdhexaadiyaha ganacsatada iyo ciyaartooyda kale ee suuqa sarifka ku dhex jira. dalaalka aan ku sheegin waa Octa Forex. wuxuu dadka ka caawiyaa inay suuq soo galaan lacag yar. Octa Forex waxay u taagan tahay waxay siisaa qoraahyada ugu faa'iidada badan iyadoo la isku darayo qoraahyada qiimaha dhowrka ee qaybaha kala duwan suuqa oo leeyahay, waxaana bixisaa lacagaha ee bixisaa. taasi waa suurtagal sababtoo ah teknoolojiyadda shabakadda isgaarsiinta electronic CNN waxay diiwaangelisay midani. shabakaddan way ay ku jirtaa waa ganacsi aad u ballaaran sababtoo ah sarifka lacagaha ayaga ayaa qaabilsan. Octa Forex waxay ku siinaysaa faa'iido, taas oo ah ogolaanshaha inaad ku dhufato faa'iidooyin badan. barnaamijyada ganacsiga ee casriga ah waxaad ka ganacsan kartaa online
laatay 4 saacadood 5 saacadood ayaad ka ganacsan kartaa iyo meelo kasta oo aad rabto. Aynu si qoto dheer uga hadalno forex. Waxaan rabaa inaan kuu soo koobo oo midaan inaan kuu soo koobo ayaa rabaa. Haddii aad la socotid wararka sicir bararka iyo Yurub ee hoos u dhicida doona lacagaha kala duwan sarifka euro iyo dollarka way kala dhici doonaan iyo lacagaha qaar ee Japanese kuwaas ayagoo badan. Haddaba aan kuu soo koobo wixii aan cashirkan ka baranay. Sarifka caalamiga ah waa suuqa maaliyadeed ee caalamiga ah, halkaas oo lacagaha lagu kala iibsado online saacad kasta. Xitaa haddii aadan ka ganacsan suuqa sarifka caalamiga ah, waxaad ku kasban kartaa kala duwanaanshaha qiimaha lacagta adigoo iibsanaya oo iibinaya lacagta kale. Macnaheedu waxay tahay suurtagalnimada in lagu iibsado ama lagu iibiyo mugdi kasta oo lacag ah isla markiiba qiimaha suuqa. Waa astaan ugu wanaagsan forex. Waa astaan ugu fiican ee qofka da'yarta uu ku qabsan karo lacag badan. Xogta forex waxay ka caawinaysaa dadka inay ganacsadaan forex iyagoo siinaysa xigashooyin ugu faa'iido badan iyadoo la kaashanaysa teknoolojiyadda ECN Electronic Central Network iyo codsiyada ganacsiga ee casriga ah. Isbeddelku waxa uu cabbiraa kala duwanaanshaha qiimaha ee muddo cayiman. Suuqa aan deganayno waxa uu siinayaa qofka fursad aad ku kasban karto faa'iido badan ee lacagta dollarka ah. Laakiin si aad uga faa'iidaysato waxaad u baahan tahay inaad la socoto wararka suuqa ee maalin kasta soo baxaya.